halkan waxaa wada fadhiya haweenka jilicsan ee ka tirsan degmooyinka gobolka Banaadir kana shaqeeya nadaafadda iyo bilic soo celinta caasimadda Soomaaliya ee Muqdisho. kulan weyne ay soo qabanqaabisay gudoomiyaha haweenka gobolka Banaadir Jawaar Maxamuud Baarqab, isla markaana ay goobjoog ka ahayeen gudoomiye ku-xigeenka arrimaha bulshada gobolka Banaadir Basma Caamir Jakeeti, xildhibaano, fanaaniin, haween iyo marti sharaf kale oo lagu casuumay. kulankan ayaa lagu soo bandhigay heeso aad u macaan kuwaas oo lagu soo dhaweynayay madaxweyne xasan sheekh. waxaa isqabsaday munaasabadda lagu soo dhaweynayo madaxweynaha cusub ee Soomaaliya, waxaana haweenkii fadhiyay masraxa tiyaatarka qaranka ay ka kaceen fadhiga iyaga oo markaasi boorka madaxweyne xasan sheekh markaasi la dul tagay calanka Soomaaliya iyo sidoo kale dhammaan calanka degmooyinka gobolka Banaadir. haddaba qaar ka mid ah haweenka degmooyinka gobolka Banaadir iyo martidii lagu casuumay kulankan ayaa ka hadlay arrintii uu ku dhawaaqay oo ahayd inaan mar dambe teendadaasa tegaynin oo codka weligaa wafood la aadayo, dastuurka la dhammaystiraayo, maamulka la dejinayo ilaa hoos la geynaayo. waxaan dib ku jirnoona waa ka bixi doonaa doorashadii madaxweyne xasan sheekh maxamuud oo 15 ku beegneed maalintii leegada oo la isku aadiyo ilaahay qeyrkaas lagu siiyey ayaan maanta u taaganay inaan soo hambaliyayno soo dhaweyn hadda gobolka Banaadirna. aabbahay oo ahaa nabadoonnada Soomaaliya isimada mid ka mid ah ayaa wuxuu ku kaftamay qabiil ka mid ah qabiilada Soomaaliyeed. wuxuu yiri diray haddii hawiyo daarood ahaan kuu dilo, daaroodna hawiyo ahaan kuu dilo, ilaahina aadan ahaan kuu dilo, maxaa kaa soo haray? haweenku taasay la mid tahay, qabiil walba ayaan u dhalnay, Soomaali baan midaynay, saasoo tahayna xaquuqdeenu waxay ku maqan tahay oo ku weynay. reer hebel bay dhashay, reer hebel bay u ilmo dhashay, reer hebelna way ka soo jeedaa. saddexdaas cadow aan leenahay. si aan uga gudubna arrintaas waa in xaquuq midaysan oo aan qabiil ku sanaysnayn oo u gooni ah haweenka waa inaan helnaa. waxaanu ku heli karnaa waa mas-uuliyiinta waddanka u sarraysa oo madaxweyne aad hoggaankeeda maanta adigu aad ku guulaysatay. waxaana kaa filayaa inaad noqotid kii xorayn lahaa haweenka Soomaaliyeed. annagoo isku duuban ayaan leenahay madaxweyne soo dhawow. waxaanan diyaar u nahay habeen iyo maalin caasimadan baa mas-uuliyadeedana saaran tahay inaan horumarkeeda ka wada shaqeyno, iska kaashanno. mid volunteer ku shaqeysa iyo mid qaranka sida kale ugu shaqeysaba waxaan diyaar kuula nahay inaan garbahaada buuxino. waad aragtaa haweenku horumarka ay caasimadda gaarsiiyeen. tusaale ahaan hadday haweenkan maanta halkan fadhiyo aysan laba subax usoo shaqo tegin caasimadda waa laga dareemaa. jidadka waxaa ku arkaysaan wasaq, waxaa ku arkaysaan busta iyo wasaqda iyo isdhexyaaca. intaasna 8 saaco habeenimo laamiga Makal Mukarrama wadnaha iyo Sodonka waxa taagan 9 saac 8 saac ee boqol mitir u xaaqaayo rag maahane waa dumar si isxilqaan ay ugu sameeyaan. waxaan ku leenahay madaxweyne aad baan ku soo dhaweynaynaa. Jawaar Baarqab gudoomiyaheena oo soo abaabushay oo intaas oo qof isugu keentay. qof walba qalbiga wuxuu ku hayay inuu barnaamijkan oo kale ka qayb galo, laakiin hurmuudkaygu wuxuu noqday gudoomiye Jawaar Baarqab. iyada isu kay keentay isu kay soo urusay maanteedana waxaan leenahay wad maadsan tahay. laakiin markasta haweenka Soomaaliyeed waxay garab taagan yihiin dawladnimo wax loo dhigaa ma jirto. dawlad aan haweenku taageerin dawlad ma noqoto. marka waxaan ku leenahay madaxweyne adiga ku dhaaduna gabdhaha gaar oo eeg gabdhaha xilalka soo socda waa inay inta badan ay ku noqdaan gabdho si aad guul u gaadho. waan ku duceynaynaa. الله مدير حسن شيخ محمود مدحوينه شرفته له oo ku soo laabtay jacayl loo qabo. الله دولة dumar دولة dumar dirbiga hoose waa dumar dowladda dumar dirbiga hoose waa Soomaaliya garabkaagan taaganahay guushu waa xagaaga. gabagabadii gudoomiyaha haweenka gobolka Banaadir iyo gudoomiye ku-xigeenka arrimaha bulshada ee maamulka gobolka Banaadir Basma Caamir Jakeeti ayaa soo xiray
munaasabada lagu soo dhaweynayay madaxweyne xasan sheekh maxamuud. madaxweynaha ducada iyo dardaaranka intan ee baahan intan oo daacada intan oo nadiifa intan oo xaraan cunin intan oo xaq darro ku shaqayn haday ku soo baxeen ku duceeyeen duca waad qabtaa tii waalidkaaga eelkaaga annagana waa kuugu darnay waxaa tahay madaxweyneeni mar kalena waxaa tahay walaalkay waa ku mahad celinaya suurtagal laga yaabay dad badan inay isdhahaan maxay maanta u soo baxeen kala hore markuu madaxweyne noqday xasan sheekh maxamuud tiyaatarka nooma dhisnay laakiin maanta uu dhisay annagu dumar aanahay dawladii timaado maka xaaji banaadir wuxuu yiri habartaa ninkii qaba maxuu isku yahay adeer annaga dawladda qofka yimaadee daadeeyo waa adeerkeen waxba naga ma gelin cod bixiyaal maniin cod maliin haweenaan nahay waa soo dhaweynaynaa shalay sidaan madaxweynaha ula shaqaynay asagaan la soo shaqaynay madaxweynihii hore sheekh shariif ilaahay khayr siyaa la shaqaynay xasan sheekh maxamuud aan la shaqaynay farmaajaan la shaqaynay maantana adaan kula shaqaynayna cid laga baryaayo male hadday noqoto gurbaan garabkaaga gurbaan gacalkaaga gurbaan garabkaaga iyo gurbaan gacalkaaga dawladnimaduna waa isku dhiib habeenba maalin iyo wiil hooyo dhashaa imaanayo ilaahana ku hibeeyay haweenka caasimadda aadaan ugu mahad celinaa maalin walbo inay u taagan yihiin dawladnimada mudane madaxweyne aadaan kaaga mahad celinaynaa xildhibaanada qaranka oo codkooda ku siiyey inaan mar labaad ku soo noqotid aad iyo aadaan iyagan ugu mahad celinaynaa waxaan diyaar u nahay inaan kula shaqayno aanu u shaqayno dalkeena iyo dadkeena ma ahan xasan sheekh in loola shaqeeyo waxaa loola shaqaynaa waa dawladnimo xasan sheekh madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya alla subxaanahu wa tacaala u doortay gabdhaheenana waxaan naga go'an dawladnimada inaan la shaqayno inaan ilaalino calanka buluuga naga dhaxeeyo inaan ilaalino dawladdeena inaan ilaalino waddankeena xuquuqda uu leeyahay aadaan idinkaga mahad celinaa balanteenu waa shaqo balanteenu waa horumar balanteenu waa madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya inaan la shaqayno mar labaad iyo madax saddexaad waxaan leeyahay madaxweyne hambalyo madaxweyne aadaan kugu faraxsannahay madaxweyne waa ku sugaynay soo dhawow ku soo dhawow dadkaagii oo ku jecel ku soo dhawow caasimadda oo ku jecel ku soo dhawow magaalada muqdisho kula garab taagan mar walbaba horumarkaaga iyo wada shaqayntaada wanaagsan aadaan idinkaga mahad celinaa waqtiga qaaliga aad wada joogteen aadaan idinkaga mahad celinaa sidaad ugu diyaarsan tihiin in dawladnimada ay hormarto dawladnimaana deeqo anaga haddaan nahay haweenka Soomaaliyeed محمد يحيى جينو RTV تياتر كقرنكا مقدشو